deedo wanaagsan la dagaalanka musuqmaasuqa hay-ado shaqeeya kalsoonida bulshada. Dowladnimo wanaagsan waxa ay ku dhisan tahay in muwaadinku dareemo in hay-adaha dowladdu yihiin kuwa isaga u adeegaya. 8 nabad dhisida. Nabaddu waa saldhigga dhammaan horumarka. Haddii nabad la waayo, waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, maalgashiga iyo adeegyada bulshada dhammaantood ayay saameeyaan. Wadatashiga qaranku waxa uu doonayaa in khilaafaadka lagu wajaho wada hadal halkii rabshad laga adeegsan lahaa, isfahan halkii nacayb laga abuuri lahaa, xal siyaasadeed halkii xoog la adeegsan lahaa. Nabad waarta waxay u baahan tahay in la fahmo sababaha khilaafka, la dhageysto dhinacyada kala duwan, lana dhiso kalsooni. Haddaba yaa ka qayb qaadanaya weeyaan su'aashu. Wadatashiga qaran oo dhab ah ma noqon karo mid ay qayb kaliya bulsho ka mid ahi leedahay. Waxa muhiim ah in codadka kala duwan la maqlo. Geedi socodka waxaa lagu daray siyaasiyiin, ururada bulshada rayidka ah, culimada iyo hogaamiyeyaasha diimaha, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, aqoon-yahanada, bulshada deegaanka, hay-adaha dowladda, qurba joogta, qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddigu waxa uu sheegay in ka qaybgalka iyo ururinta ajendayaasha laga sameeyay meelo badan oo dalka ah. Waxaana May 2026 la sheegay in xog ururinta ajendayaasha laga sameeyay 234 degmooyin oo u dhiganta 93% dalka. Dhalinyarada iyo wadatashiga qaranka. Dhalinyaradu waa qaybta ugu badan ee bulshada Itoobiya. Sidaas darteed, mustaqbalka dalka si toos ah ayuu ugu xiran yahay. Dhalinyaradu ma aha oo kaliya kuwa la sugayo inay mustaqbalka hogaamiyaan dalka. Waa inay maanta qayb ka noqdaan go'aanada saameynaya mustaqbalkooda. Waxay muhiim u yihiin nabadda, hal abuurka, teknolojiyadda, ganacsiga, waxbarashada, shaqo abuurka, isdhexgalka bulshada. Dhalinyarada waa in loo abuuro fursad ay ku shaqeeyaan waxa ay doonayaan in Itoobiya noqoto 10, 20 ama 30 sano kadib. Haweenka iyo doorkooda. Haweenku waxay door weyn ku leeyihiin bulshada, qoyska, dhalinyarada iyo nabad dhisidda. Haddii haweenka laga maqneeyo marka laga hadlayo arrimaha qaranka, waxaa maqnaanaya qayb muhiim ah oo bulshada ka mid ah. Sidaas darteed, ka qaybgalka haweenku waa inuu ka gudbo joogitaanka shirarka oo kaliya. Waa in codadka la maqlo, go'aanada, talooyinka iyo xalalka laga soo saarayo wadatashiga. Haddaba, wadatashigu ma yahay dhammaadka khilaafaadka? Jawaabtu waa maya. Wadatashigu waa bilowga xarraadin qaran. In dad badan ay shir yimaadaan kaligood ma damaanad qaadayo in khilaafaadka dalka dhammaanayo. Guusha dhabta ah waxa ay ku timaadaa ama ku xiran tahay ama ku xirnaan doonta waxa ka dambeeya shirka. Haddii talooyinka la isku raaco aan la fulin, kalsoonida bulshadu way dhaawacmi kartaa. Sidaas darteed waxa muhiim ah wada hadal, is-afgarad, talooyin, qorshe fulineed, isla xisaabtan, natiijo muuqda. Maxaa laga filan karaa wadatashiga? Haddii geedi socodku si hufan oo loo dhan yahay u shaqeeyo, waxaa laga filan karaa 1 isfahan bulsho. Dadku waxa ay si wanaagsan u fahmi karaan aragtiyada dadka kale. 2 kalsooni siyaasadeed. Dhinacyada siyaasadda ku kala aragti duwan waxay heli karaan meel ay ku wada hadlaan. 3 nabad waarta. Khilaafaadka waxaa loo abuuri karaa hannaan lagu xalliyo si nabad ah. 4 dowladnimo xooggan. Waxaa laga shaqayn karaa hay-ado awood u leh inay si siman ugu adeegaan shacabka. 5 aqoonsi qaran oo loo dhan yahay. Waxa la abuuri karaa fahan qaran oo aan meesha ka saarayn kala duwanaanshaha bulshada. 6 horumar dhaqaale. Nabadda iyo xasilloonidu waxa ay fursad u abuuri karaan maalgashi, ganacsi iyo shaqo abuur. Haddaba, caqabadaha hor yaalla wada tashi. Geedi socod kasta oo qaran waxa uu leeyahay caqabado. Waxaa ka mid noqon kara kalsooni darro siyaasadeed, aragtiyo aad u kala fog, kooxo aan weli si buuxda uga qayb galin, khilaafaad taariikhi ah, xaaladaha amni, su'aalaha ku saabsan matalaadda, sida loo xaqiijiyo in talooyin la fuliyo.
guddiga laftiisu waxa uu sheegay in qaar ka mid ah dhinacyada siyaasadda ay weli taxadar ka muujinayaan geedi socodka, halka guddigu uu sheegay inuu sii wado wadahadallada lagu ballaarinayo ka qaybgalka. tani waxa ay muujinaysaa in wadatashigu u baahan yahay dulqaad, kalsooni dhisid iyo ka shaqayn joogto ah. maxaa ka dhigi kara wadatashi guuleysta? guusha wadatashiga waxaa lagu qiimeyn karaa dhowr arrimood. loo dhan yahay codadka bulshada kala duwan waa in la maqlaa. hufan. bulshadu waa inay fahanto waxa laga wada hadlayo iyo sida go'aanada loo gaarayo. awood leh. natiijooyin waa inay yeeshaan awood cad oo la fuliyo. is-ixtiraam. kala duwanaanshaha fikraduhu waa inuu noqdo wax la aqbalo. danta qaran. danta guud waa inay ka sarreyso danaha kooxeed iyo shakhsiyeed. fulin. natiijooyinka wadatashigu waa inay u gudbaan ficil. wadatashiga qaranka iyo Dirdhabe. Dirdhabe waxay leedahay meel muhiim ah oo ku saabsan dooda mustaqbalka Itoobiya. waa magaalo federaal ah oo leh bulshooyin kala duwan, dhaqan hodan ah iyo muhiimad dhaqaale iyo waliba sidoo kale juqraafiyeed. maadaama maqaamka Dirdhabe uu ka mid yahay ajandayaasha wadatashiga qaranka, waxa muhiim ah in bulshada Dirdhabe ay si xoog ogaal ah uga qayb qaadato dooda ku saabsan maamulka magaalada, adeegyada bulshada, horumarka, xuquuqda muwaadiniinta iyo mustaqbalka magaalada. wadatashigu waxa uu siinayaa bulshada fursado ay ku muujiyaan waxa ay rabaan, waxa ay ka cabanayaan, waxa ay ku faanayso iyo sida ay u rabto in mustaqbalka Dirdhabe loo dhiso. doorka warbaahinta marka aynu nimaadno, warbaahintu waxay leedahay mas'uuliyad weyn. waa inay bulshada gaarsiisaa xog sax ah, dhexdhexaad ah oo la fahmi karo. warbaahintu waa inay sharaxdo waxa wadatashigu yahay, soo bandhigto ajandayaasha, dhagaysato bulshada, siiso cod qaybaha kala duwan, ka fogaato hadallo hurinaya nacayb, la socoto fulinta natiijooyinka. sidoo kale warbaahintu waxay noqon kartaa buundo isku xirta dowladda, guddiga iyo shacabka. wadatashiga qaranka Itoobiya ma aha oo kaliya shir maanta dhacaya. waa isku day lagu raadinayo jawaabo ku saabsan su'aalo muddo dheer taagnaa. waa fursad lagu dhageysanayo codad kala duwan. waa fursad lagu fahmo sababaha khilaafaadka. waa fursad lagu dhiso kalsooni. waa fursad lagu abuuro aragti qaran oo wadaag ah. laakiin guusha dhabta ah ma noqon doonto tirada dadka shirka ka qayb gala oo kaliya. guushu waxa lagu cabiri doonaa waxa laga bedelo nolosha dadka. haddii wadatashigu keeno hay'ad xooggan, sharci la ixtiraamo, nabad waarta, fursado dhaqaale, maamul wanaagsan iyo bulsho is-aamina, markaas waxuu noqon karaa bog cusub oo taariikh ah. haddii talooyinka iyo heshiisyada la gaaro loo bedelo ficil, jilalka maanta iyo kuwa berri waxay heli karaan Itoobiya xasluun, nabad badan, kana wada wanaagsan Itoobiyadii hore. wadatashigu waa inuusan noqon oo kaliya meel la isku dhagaysto. waa inuu noqdaa waddo lagu gaadho ficil, is-afgarad iyo mustaqbal wadaag ah. sidaas darteed, su'aasha ugu weyn maanta ma aha oo kaliya maxaa ku heshiin karnaa. waxay sidoo kale tahay sideen heshiiskan ugu bedeli karnaa ficil dhisa Itoobiya ay dhammaan muwaadiniinteedu dareemaan inay leedahay. taasi waa caqabada, waana fursadda hortaalla wadatashiga qaranka Itoobiya. nabadeed.